8 January 2019 Puntland waxay dooranaysaa madaxweyne warbixintan qaybteeda koowaad waxaan idinku soo gudbinayaa qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xafiiska ugu sareeya maamulkaas Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waa madaxweynaha hadda talada haya wuxuu dadaal ugu jiraa sidii mar kale loo dooran lahaa kaabayaasha dhaqaalaha oo uu wax badan ka qabtay ayaa lagu amaanaa waxa halku dhig u ah daldis iyo daryeel haddii uu doorashadan ku guuleysto wuxuu noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Puntland dib u doorato Faarax Cali Shire waa wasiirkii maaliyadda xukuumadda madaxweyne Faroole waxa lagu bogaadayaa sidii uu u maamulay maaliyadda muddadii uu xilka hayay waxa halku dhig u ah run iyo rajo haddii la doorto wuxuu noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyay ee aan ka soo jeedin beesha Maxamuud Saleebaan Siciid Cabdullaahi Dani oo mar ahaa wasiirka qorsheynta Soomaaliya waa nin qunyar socda oo bulshadu u hayso tixgelin badan waxa lagu naanaysaa aabaha waxbarashada Puntland Tayeyn iyo Tixi ayaa u ah halku dhig uu doorashada ku galiyo Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye waa nin ku cusub saaxadda siyaasadda hase ahaatee horumar ballaaran ka sameeyay ganacsiga nin deeq leh oo deegaan u tagaba dherginaya ayaa loo arkay karti iyo hufnaan ayaa halku dhig u ah Asad Cismaan Cabdullaahi tan iyo 2010 ayuu ahaa taliyaha ciidanka la dagaalanka argagixisada ee loo yaqaano BSF waa 35 jir taasoo ka dhigaysa madaxweynihii ugu da'da yaraa ee abid Puntland doorato halku dhigiisu waa difaac iyo dawladnimo Khaliif Ciise Mudan wuxuu Puntland ka soo noqday wasiirka amniga dagaal ee Puntland la gashay 9-meeyadii ururka Ittixaad ayaa la rumaysan yahay inuu ka qaatay door libaax halku dhigiisu waa amni iyo amaano warbixinta waxaan idin soo jeedinaya anigoo ah Shiina Culay qaybteeda labaad ayaan ku soo gudbin doonaa musharaxiinta kale